degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer taageerayaal aad u tiro badan ayaa u soo baxay soo dhaweynta murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo deegaanada Kormeer ugu kuurgalayo sida ay bulshada u qaadanayaan kaararka codbixiyaasha doorashooyinka ku tagay dadweynaha degmada ku dhaqan ayaa muujiyay kulmiye iyo deegaankani sida uu taageerada xooggan ugu leeyahay gudoomiyaha degmada Duruqsi Salaadiin Cuqaal aqoonyahan xildhibaan Maxamed Cali Xirsi barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan barasaabka gobolka Gabiile Xamse Cadow Yuurura wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada Somaliland علي دغولي iyo wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani ayaa la hadlay dadweynaha degmada Duruqsi basiiraya tagiye Muuse nuu fadhina Muuse nuu fadhina labaceena qarsan mayno gaban mayno waxaan xisbiga kulmiyaanu ka gudoon kalgacalka iyo muxubbada iyo walaaltinimada ay ku hayaan ee ay kaaga muujinayaan halka maanta waxa loo socdaa waa kaarka hal qaato ayaan ku celinay waxaan soo maray ilaa 4 iyo 30 goobood baanu ilaa saaka soo marnay intaaba si fiican oo nabadgelyo ayay uga socotay reer Duruqsi waxa la hal galgalatay labaceeda ma qarsan galabta soo dhaweyntiini iyo sharaftiini iyo sidaad noo soo dhaweyseen sidaad soo abaabusheen dareenkiina xisbinimadiina degmanimadiina qarannimadiina madaxnimadiina intaba sidaad noo soo dhaweyseen baad ka muuqataa aad iyo aadna waa idinku mahad celinaynaa soo dhaweyntiina waa idinku mahad celinaynaa annagu ninkaan wadno ee nala socday maanta noo hogaaminaya waa nin Somaliland oo dhan caanka waa nin naftiisa u soo huray dalkan uguna tala galay sidii saaxiibadii ama reer Duruqsi ha ahaadaan ama reer Cergaaba ha ahaadaan ama reer Gabiile ha ahaadaan ama reer Saaxil ha noqdaan meel alla meeshii saaxiibadii rag badan ay saaxiibayeen Somaliland oo caawa naga hooseeya halkii ay galeen ayuu isaguna ku tala galay inuu u galo sida aynu maanta cisi iyo sharaf iyo maamuus aynu Duruqsi sida maanta isugu iman lahayn aynu isugu soo dhaweyn lahayn waa mujaahid Muuse Biixi Cabdi horta ninkan ka hadlaya waxaan leeyahay arrinka ceelka Cali Ciise iyo abaarihii ka dhacay degmadan iyo iskuulka Cali Ciise halka ka dhisanay dadka faraha badan ee reer walba ay dhigtaan intaba dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ee hoggaankeedu yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xisbigeeduna uu yahay musharaxeeda iyo gudoomiyihiisu xisbiga kulmiye mujaahid Muuse Biixi Cabdi ka mid yahay ayaa ceelkana dhistay imikana diyaar oo aanu dhisto lacagtiisina waa lahay mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa dhankiisa u mahad celiyay bulshada degmada ku dhaqan ee sida ballaaran waftigiisa u soo dhaweeyay ujeedada waxay ahayd kaarka hal qaato inaanu gobolba maro oo dana badan inoogu jiraan oo ugu weyn tahay in tirada Somaliland la ogaado barorta intay tahay waayo dal wuxuu ku dhisan yahay waa dal iyo dad marka hadii aan caalamka marka la qorayo buugaagta aan tiradeena la aqoon waxa inaga dhiman marka in dadku ay isdiiwaan galiyaan oo marka la garto inta qof waaweyn isdiiwaan galisay inta yaryar ee carruurtaana waa la garanaya marka kaarka hal qaato la isku raac waa inoo gudoon waa talabaad xisbiyadu markay kaarka la qaato dadku waxay haystaan awoodii qaranka waraaqda kaarkeed maanta qaadanaysaan adigoo Duruqsi jooga oo xoolaaga raacaya waxaad ku bedeli karaysaa madaxweynaha oo waxaad soo saaraysaa ka doonaysa
murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxa uu xilli habeenimo ah booqday deegaanka riyo xidho iyadoo bulshada deegaankaasina ay wafdigiisa si qiimo leh u soo dhaweeyeen goob fagaaro ah ayuu gudoomiyaha xisbiga kulmiye kala hadlay dadweynaha deegaanka ku dhaqan isagoo uga mahadnaqay sida ay xisbigiisa u soo dhaweeyeen waxaanu ku bogaadiyay inay qaataan kaadhadhka codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland